maanta oo ay bishii Juun tahay 8 sanadku yahay 2003 waxaan magaalada Jabuuti kula kulmay aw jaamac Umar Ciise oo aan ka wareystay qoraalkii afka Soomaaliga su'aashii ugu horeysay ee aan weydiiyay marka waxay tahay bal in aw jaamac uu dulmar kooban ku sameeyo waxyaabaha ay Soomaalidu u isticmaali jirtay fariimaha qoraalka ah inta aan la soo gaarin qoritaankii afka Soomaaliga. Bismillahir Rahmanir Rahim. Waayadii horeeto sidaynu ka warhayno waxa lagu qoran jiray afkan Carabiga. nin Carabi ku qora Carabi gaar ah iyo nin farto Carabiya afkuna uu Soomaali yahay ku qorta. taasuna waxay la socotay markii islaamku uu dhulka soo galay. far kaleeto oo dhulkeena soo gashay oo meel kale ka timi nooc kasta ha ahaatee odayna ma warin dhagna kuma maqal. farta Carabiga ayaa arlada ugu xoog badnayd oo haysatay. wadaadadu masafooyinka ayay ku qoran jireen. ninkii gabay qoraana gabaga dadkaas qori yaqaan buu u tagi jiray wuxuu oran jiray gabagaas aan tiriyay halay qoro. haddii farta Carabiga lagu qoro dee meel lagu keydii ma leho waxay hadee u dhowdahay inuu iska lumaa. horta fartaas qarniyo badan bay soo martay sidaynu ka warqabno. intii islaamku soo baxay ama reer Soomaaliya jirayna afkan Soomaaliguna waa jiray farta Carabigana waa la socotay. waxaad ka garanaysaa kutubtii farguriga ahayd ee tirada badnayd ee la qoray. hal buug baan ninka soo iibsan jiray ama Baghdad ama Makka ama Madiina. buugga markii Soomaaliya la keeno nin far wanaagsan ayaa guurin jiray ama qaalin ama laba ayuu ku qaadan jiray. arrin wadanka oo dhan ku fidsan ayay ahayd waqooyi iyo koonfur bari iyo galbeed. 1986 markay ahayd dawladii kacaanku amar bay bixisay waxay tiri bal la soo baaro waxa fargurida la yiraahdo hala soo ururiyo waa la kaydinayaa meel baa la dhigayaa intay dibadaha ku lumi lahaayeen ama roob ku diilaha hala keeno. malaha niyad bay ka ahayd oo marka iyagu say hadalka ku soo saareen niyad bay ka ahayd laakiin waa la eeday taas. hay'ad wixii maantay meel ka baxeen lama yaqaan. akademiyi bay tuunsanaayeen sidii akademiyaha loo dhigay oo qol loogu sameeyay oo qaboojiye loogu daaray deemeesh baan lagaga tagay. aan in yar dib u noqono wax kasta oo Soomaaliya laga qoray oo Carabi ahaa mar haddaan meel lagu kaydiyo oo la dhigo ayaan lahayn waxay la tacaqligaaga ka garan kartaa inay iska lumaayaan 2 sano inay dhaafaynin. dhowr warqadood oo aan helay kun iyo adigu 800 ilaa in soddomaadkii warqad la qoray ayaanu ka helay magaalo Buruc la yiraahdo oo gabana oo xeebta qandala ka sokaysa ku taal. waxay ahayd 14 bog. waxa ku qoraa masafa maaragtay muxuu u mariyay nin la oran jiray Xaaji Cali Cabdiraxmaan Faqi Khayre oo waawaano. markii war af Soomaaliga loo gudbo dhaqdhaqaaqiisu ma yarayn. 1930kii nin la oran jiray Cabdi Habboone ina Habboone loo yaqaan reer cadmeed ahaa buug buu ku soo daabacay meesha la yiraahdo Hindiya. buuggaas wuxuu ahaa afkuna Soomaali buu ahaa fartuna Carabi bay ahayd. nooca ay Iran iyo Pakistan afkooda Carabiga ugu qoran ayuu ku qoray kuna soo daabacay. buuggii qaybtiisa anigu waan arkay laakiin hadda gacan kuma hayno waayay wixii lumay buu raacay. wuxuu joogi jiray maaragtay Berbera iyo maaragtay Cadan iyo dhulkaas. wixii ka dambeeyay oo dhan nin kasta baa hadal hayay nin Carabi ku qora nooc kasta uu ku qoray. marka xarafka gacda iyo qaafka iyo xaruftii la isku dhaacda iyo gacda iyo xuruftaas aan Carabiga aqbali karin ayaa weligeed la isku khilaafsanaa. oo ninba si ugu qoranayay. taaddoodi kama joogino ninka Berbera jooga iyo ninka Boosaaso jooga ninba meeshiisu kaga qoranayay. kan Baraawe jooga iyo maaragtay kan Berbera jooga ninba meeshiisu kaga qoranayay. warqad 1912kii uu Sheekh Uways faafiyay oo xajeeki la yiraahdo xuruftu waxay ahayd Carabi afkuna wuxuu ahaa Soomaaliga mayga ah. xajeeki Italian waa maxay maalin leeydi khamiis xarbiyeen caynkaasi u socotay. marka waagi dambeeto
1950 kii markii Talyaanigu soo noqday farta Cusmaaniyada ayaa wixii ka horeysay qiimo lahayd oo lagu shaqaysan jiray iyo Carabiga labadaba baa lahayay farihii Afrikiga soo gelin wax sa jiray niman maaragtay markii hore soo galay dhulka oo ahaa Ingiriisi iyo maaragtay muxuu ahaayay Faransiis 1850 kii Richard Burton markuu yimid Soomaaliya oo heer u gudbay oo ka soo noqday dawladdiisa wuxuu kula taliyay warqadii riboorkii uu qoray waxa kamid ahaa Soomaalida afkeedu waa af qiimo leh waa in la tixgeliyaa oo baaris lagu sameeyaa isaguna waxbuu ka qorqoray oo Hargeysa iyo marayay meesha dhulku wadeys dhul reer markuu ka soo noqday Harar oo Hargeysa iyo meelaheeda marayay raw kula kulmay wuxuu u sheegay in afka Soomaaligu uu yahay af xoogaa yarahe qiimo leh in la quraan ay haboon tahay nin kale oo Ingiriisi wuxuu soo saaray oo buug yar oo uu qoray 1914 kii oo uu ku faafiyay oo yiri afka Soomaaligu waa af qiimo leh waa in la qoraa anigu mustashriqiinta labada nin ayaan ka maqlay wax ka qorqoray ka kaalay 1950 kii markii la isugu yiri Talyaanigu soo noqday wuxuu Talyaanigu isku dayay in afka Soomaaliga la qoro oo maaragtay muxuu ahaay Laatiinka Talyaaniga lagu qoro waxa ka dhacay mudaharada xoog leh oo rag badni ay Shariif Maxamuud iyo Xaaji Diriye Xirsi iyo macallin jaamac iyo rag hadii markaa magaalada odayaasha u ahaa Xaaji Maxamuud Qurmoone iyo adigu rag badan baa ka hortagay oo maaragtay muxuu ahaayay aanu ogolaan maaragtay in farta Talyaaniga Laatiinka lagu qoro farta Soomaaliga Laatiinka lagu qoro waagii dameeto nin la oran jiray maaragtay Banso Bruno oo Talyaaniya iyo ninka la yiraahdo Cabdullaahi Insaani Cabdullaahi Xaaji Maxamuud ayaa waxay soo saareen buug sidii loogu qori lahaa markii ka la soo saaray buu shira jaamacada ka dhinac qaatay oo isaguna mid kale soo saaray aqoonta iftiinka kii la baxday iyo iftiinka aqoonta inuu habaan malaynaya labadaas ayaa ugu horeeyay wax la qoro oo maaragtay muxuu ahaayay lagu qoro afka Laatiinka oo jaamac Laatiinkaas intaan la soo gaarin Soomaaliya qoridiisa waxa sheegtay in mudaharaad ay ka dhaceen dalkii oo dad badan oo Soomaali arintii ay ka horjeesteen in la qoro far Soomaali ku qoran Laatiin marka arintaas bal sababaha dadkaas ay ku diidanayeen maxaa kamid ahaa sababahaas waxay ku diidanayeen wax badan oo la soo maray ayaa jirta waad maqashay jaamacadda Ingiriiska waxaan ka furayaa meesha la yiraahdo muxuu ahaayay Sheekh wadaadada iyo iyagu wadaad mudaharad badan baa ka dhacay oo culimadu hogaaminayeen waxay yiraahdeen waa Laadiin oo waxaas aad noo keenaysaan dhulkayga gaalana uma rabno Laatiinna ma rabno kuwa kan markaa diidanaana waxay lahaayeen Laatiinku waa Laadiin oo diintayada ayuu wuxuu dhimayaa dadkayaga ayuu gaala ka dhigaya Masiix baa soo dhexgalaya dooni mayno in waxa dhulkayaga lagu fidiyo markii dambe dawladda kacaanka 69 kii markii la soo gaaray waxay magacawday guddi af Soomaali guddigaas ragii ka mid ka ahaa yaa tada ka xasuusataa raggaas 24 bay ahaayeen 23 nin iyo gabadh Shariif Saalax baa hortay shirka madaxu ahaa waxa ku xigay Yaasiin Cusmaan Keenadiid oo nin hadii loo og yahay af Soomaaliga ahaa waxa ku xigay Xirsi Magan oo isaguna aad iyo aad af Soomaaliga u dhug lahaa waxa ku xigay Muuse Galaal أو جامع عمر عيسى حاج محمد حسين شيخ عرير حسين شيخ أحمد كدري إبراهيم حاشي محمود عبد الله أبو بكر دعم الديري شرى جامع الجوجي مصطفى حاج نور عبد الداهر أفي أحمد علي أبو بكر دهلا فارح حسن رجع كحسوسنا هاي عمر أو نوح أو سجن أنا لا كريم محمد شرقاب عبد الله حاج محمود حاج عبد الله إنسانية عبد الله أرضي ورير جبوتي هاي هالك كل تواجد دميته مرد من الواحد لقوا سكر لي أحمد أشكر بوتان أحمد فارح إذا جاء جامع حاج حسن أو عاقب عبد الله نين لو رنجري الله نحرسته عبد الله الديرية حاج هذا نفقلوع رجعس أيا لقوا سكر لي يوسف ما يقعد سمنتر وأف سوماليغا وريديسي markii loo kala baxay waagi dambeeto af Soomaaliga dhamaadeen waxa loo kala qaybiyay in ay soo saaraan maaragtay maxay xagga buugaga qolana naxwihi baa loo daayay qolana waxa loo daayay maaragtay eray bixintii
qole waxaa loo daayey gabayadii iyo sheekooyinkii qole waxaa loo daayey buugtii maaragtay muxuu ahaye iskoolada lagu dhigaayey saasaa guddigu ahaa guddigaasu waa guddi habaysan oo nidaam iyo xukun ku socda oo ismaqal ka dambeeyo ayuu ahaa gabayo badan baa waagaa laga tirinayay laakiin oo lagu ammaanayay laakiin gabayadiinu maantay waxba kama hayo guddigaas awjaamac markaad fiiriso magacaabistiisii iyo natiijadii dambe ee ka dhalatay af soomaaliya qoristiisii ma kuula muuqday guddi iska maqaar saar ah mise wuxuu ahaa guddi dhab ah oo magacaabistiisii ay ka dhalatay natiijo saxa isweydiin mayno guddigaasu inuu ahaa guddi maaragtay ku habboonaa in la qabto markaa ka hor bayna ku habboonayd xagga kharashka iyo xagga nidaamka iyo xagga maaragtay isuduwidda nidaamka maaragtay dawliga ayaa ka maqnaa maaha markii horeba dadka oo dhammi waa u bukaan qabay waana jeclaa in afkan soomaaliga la qoro guddigaasna markii loo sheegay magacyadoodii nin waliba isagoo ku faraxsan ayuu hawshii dhex galay hase ahaatee tan keliya ee laysku hayay waxay ahayd ma cismaaniyaynu ku qorraa ma laatiin baynu ku qorraa ma carabi baynu ku qorraa ma farac cusub oo dhinacyada kaleeto laga keenay dhowr iyo 10 maxay farti ka dara keenay baa jirto far kaleeto Soomaaliya laga keenayo Muuse Galaal mid waday baa jirto faraha kala duwan ayaa hadalku ka joogay af Soomaaliga ma la qoraa doodi kama joogin waa la isla ogolaa xataa duqowdii horeetay markii horeeto ka soo horjeeday in maaragtay afka laatiinka lagu qoro maanta inkastoo badankoodiiba dhintay ma diidanayn maxaa yeelay afka waa loo jeel qabay oo afkii maaragtay shisheeyaha oo dhan ayaa la nacay laakiin awjaamac waxa igu maqaalo ah in markii dambe guddigiinii isaga oo shaqadii ku jira dawladda kacaankayd ee markaas ka dulriday go'aan iyada jeebkeeda oo aan ka soo bixin guddiga ay saartay raggii meesha ku jiray nin la yiraahdo Mustafa Xaaji Nuur oo baydhabo ka yimi wuxuu jeclaa afakan mayga in la qoro saasho haysto mayse ragna waxay jeclaayeen in Cusmaaniya lagu qoro ragna waxay jeclaayeen Carabi in lagu qoro markii guddigii maaragtay muxuu ahaa SRC maaragtay kacaanku u ogaaday taa ogaana ayuu wuxuu yiri maaragtay muxuu ahaayay wax far la yiraahdo way idinka reebantay inaad soo qaadaan nin waliba wuxuu yaqaan ha ku qoro oo markii farta lagu dhawaaqo nooc kasta ha noqotee wixii lagu qoray lahaa diyaariya waana laga reebay wax dooda oo ka jirin ma jirin wax khilaaf oo ku dhex jiray anu garan maayo guddigii af Soomaaliga laba habeen buu Maxamed Siyaad la shiray habeen wuxuu kula shiray gurigii maaragtay muxuu ahaayay dawladda oo soo ku lahaa meeshii maxaa la oran jiray afasioni wuxuu u sheegay laba arrimood haddaan ruuxan la ka qaban buuri ama dawladdu isbedelin oo rag kale meesha soo gelin af Soomaaliga waan qorayna waana la qoraya wixii lagu qoraa diyaariya wax la yiraahdo sumad wax lagu qoro oo aad ka hadli kartaan ma jirto nin waliba wuxuu hayo waa inuu gaarkiisa u diyaariyaa marka awjaamac muxuu u jeeday sumadda uu sheegay maxay ahayd sumadda uu sheegaya waxay tahay farta lagu qoraayo hadii laatiin lagu qoraayo hadii carabi lagu qoraayo hadii cusmaaniya lagu qoraayo hadii mid kale la keenayo sumadaasay u magacaabeen marka sumadda shaqo kuma leedin buuri ninkii soo qaadana ninka caanka hor taagan ayaan u qaadanaynaa buuri shidan laguma ahayn afka Soomaaliga in la qoro sawaan rabni habeenka kaleetana riwaayad baa la dhigay riwaayadii uu ka soo qayb gala markaan riwaayadii ka soo baxnay ayuu mar labaad noo yeeray wuxuu yiri dhawaan waan isugu imanaynaa afka Soomaaliga in lagu dhawaaqo ma diyaar garayseen wixii lagu qori lahaa waa diyaar guulaysta buuri annana wadin ku garab taaganahay yaanta la idinka waay inta kaliya aan amar ku ahaa sidaan u sugaynay 22 Oktoobar 1972 habeen markii ay baan loo yeeray waxa la yiri afkii berri oo lagu dhawaaqaya ogaada diyaarad baa hortii kacday magaalada oo dhan waxay ku Muqdisho oo dhan waxay ku daadisay iyo Baydhabo iyo Kismaayo email kasta warqadii la diyaariyay waana naguba ka warqabin marka intaan lagu dhawaaqin ayaa meel kasta oo Soomaali ah diyaarinta ka kacday lagu daadiyay dhulkii diyaaradda yar yar ee militariga Hargeysa lagu daadiyay Kismaayo lagu daadiyay gobol walba waa lagu daadiyay barqinkii markay ahayd shirkii la isugu tagana waa lagu dhawaaqay wax ka hor yimi iyo wax nacay iyo wax nabcaystay midna ma jirin oo jaamac idinkii hawsha u fadhiyay hadeednan ka warhayn waxa kan waraaqaha lagu qoray la daadiyo lagu dhawaaqay xagee laga keenay iyaga qoray
iyaguba dee niman Soomaaliya ahaayeen horta qaarkood ruushka yimi iyo si fiican wax loo soo baray baa jiray niman dibadaha ka soo noqday iyaga qoray taas yani waxa uu wada ragii ku jiray golihii sare gacanka miyaa maamul kale ma jirin golihii sare gacanka ragii ku jiray ayaa qoray laakiin iyaguna waxay u direen wasiirkii tacliinta ninka la yiraahdo maaragtay muxuu ahaayay xasan xaaji cali mare iyo kooxu wato oo kamid ah guddigii hoose ilaa laba guddi baa la sameeyay guddi kacaan oo sare oo askar ah iyo guddi hoose oo maaragtay rayid ah oo lagu magacaabay xoghayayaal guddi uu madaxu ahaa qorsheel oo maaragtay wasiiro ayay ahaayeen laakiin xoghayayaal baa lagu magacaabay raggaas loo diray oo soo diyaariyay annagana waa noo yimaadeen oo fikradda waa na weydiiyeen waxay naga qaadqaateen markaas Soomaaliga waxa weeye macnaheedu taas inay qoreen golihii sare gacanka idinkuna aad ahaydeen maqaarsaar kaliya Soomaa maya annagu diyaarayaal baanu ahayn iyaguna kuwii hirgeliyay oo ku dhawaaqay bay ahaayeen marka oo jaamac hadii la yiri wax sumada ma soo qaadi kartaan afkeena lagu dhawaaqay sumada markaas lagu qoray maxay ahayd taas xagees laga keenay sumada horta waxa laga keenay waa la diyaariyay waxa la isku googooyay xurufihii laatiinka ahaa Romaaniga shira jaamciin qoray waa laga soo qaaday Muuse Galaalin qoray waa laga soo qaaday oo Yaasiin Cusmaan rag qoray waa la soo qaaday intoo dhan baa la isku hagaajiyay xaqaantan waxa jirtay habeenka warka la faafinayo 3 nin baa loo yeeray Allahu naxariistay Yaasiin Cusmaan ninkii loo oran jiray iyo nin la yiraahdo Umar Nuux iyo nin kale hadda magaciisa iga maqay 3 nin baa loo yeeray oo habeenka lagu diyaariyay ayaama badan baa laga shaqeynayay marka guddigii af Soomaaligu maqaarsaar ma ahayn wuxuu ahaa guddigii gacan ka geystay oo wax walba diyaariyay